بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idin soo gudbinayaa qiso aad iyo aad u muruga badan. inta aanan gudagelin fadlan subscribe si ay ku soo gaaraan muuqaalada aan soo geliyo, gambaleelkana taabo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada aan soo geliyo. hooyo ayaa waxa ay haysatay hal wiil oo ayada ay dhashay. wiilkan aabihii waxa uu geeriyooday isagoo aad u yar. hooyadan ayaa waxa ay la'ayd hal il. wiilkan mar waliba dadku waxa ay ku dhahaan wiilkii hooyadii isha ay la'ayd. aad ayuuna u dhiibsaday hadalkaasi. maalin ayuu soo baxay, waxa uuna u yimaaday hooyadii. waxa uu ku dhahay, hooyo, waan ku karaahsaday oo waan ku necbahay. maxaa yeelay hooyo, il ayaad la'dahay? way naxday hooyadii, kadibna indhaheeda ayaa ilin soo dhaaftay. hooyadii waxa ay ku tidhi, wiilkaygiyow, laakiin aniga aad iyo aad ayaan kuu jeclahay. waxa uu ku yidhi mar labaad iyo mar saddexaad, hooyo, aniga waan ku karaahsaday, aad ayaanan kuu necbahay. wiilkii waxa uu go'aansaday inuu isaga fogaado hooyadan halka ilaa islamarkaana mar waliba lagu caynayo. isaga oo ka fogaanaya hooyadii ayuu ka tegey. waxa uuna degay magaalo kale, mana uusan u sheegin hooyadii inuu baxayo iyo in kale. warwar ayaa la soo dirsay hooyadii markii ay weysay wiilkeeda. waxa uuna ka maqnaa muddo 15 sano ah. intaa oo dhan hooyadu waxay ahayd mid sugta wiilkeeda in maalin uun wiilkeeda uu u soo laaban doono. laakiin markii uu maqan yahay 15 sano ayaa hooyadii go'aansatay in ay raadiso wiilkeeda nolol iyo geeri halkii uu ku sugan yahay. waxayna bilowday hooyadii in ay baadi goobto. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa loo sheegay magaaladii uu ku noolaa wiilkeeda ama uu degan yahay. way baxday hooyadii iyada oo u socota magaaladii loogu sheegay wiilkeeda inuu ku nool yahay. markii ay timid magaaladii uu joogay ama uu deganaa wiilkeeda ayay weydiisay dadkii. nasiib wanaag waxaa la geeyey gurigii uu ku noolaa wiilkeeda. markii ay soo istaagtay albaabka gurigii uu deganaa wiilkeeda, hooyadii ayaa garacday albaabka, waxaana ka furay wiil yar oo aad iyo aad ugu eg wiilkii iyada ay dhashay. farxad ayaa idlaysay hooyadii. waxa ay ku dhegtay wiilkii yaraa ee albaabka ka furay, islamarkaana ayayada ay u ahayd. sadrigeeda iyo laabteeda ayay gelisay, way ku ooysay. waxayna ku tiri, wiilkayga, wiilkaysiiyow, maxaan ku jeclahay. maxaan wax badan u baahi qabay in aan arko wiilkayga carruur uu dhalay. wiilkii yaraa waa uu la yaabay hooyadan waayeesha ah ee sidaan u ilmaynaysa islamarkaana ugu dhegaysa. waxaa gudaha ka soo baxay wiilkeedii iyada ay dhashay. markii ay aragtay wiilkeedii way faraxday hooyadii. laakiin maxay kala kulantay hooyadii wiilkeeda. waxa uu ku yidhi, haweenaydan isha la'ay, maxaa ii kaa daba dhigay aniga? iga bax albaabka oo ilmaha hayga cabsiinin. waxay ku tidhi hooyadii, wiilkaygiyow, waan kuu imid aniga oo soo jaray masaafo aad iyo aad u dheer, aniga oo doonaya in aan ku arko inta aanan dhiman ka hor. wiilkaygiyow, ma garanayo xilliga uu mowdka ii imaanayo. waxaan ku sugayey muddo 15 sano ah oo albaabka gurigii aan ku noolaa fiirin jiray in maalin un aad ka soo geli doonto. waad iga soo fogaatay hooyo macaan, laakiin alxamdulilaah waan ku soo raadiyey. waxaana nasiib u yeeshay in aan kuu imaado ka hor inta aanan dhiman. wiilkaygiyow, waan jiraday. waxaan u baahanahay in layga warhayo. waxaan u baahanahay in la i daryeelo. hooyo, waxaan u baahanahay in aad joogto meel aan kaa arki karo. hooyo macaan, aniga ayaa ku soo koriyey adiga oo saqiir ah. aabbahaana mar hore uu geeriyooday. wiilkaygiyow, idaryeel sidii aan kuu soo daryeeli jiray oo kale. waxa uu ku yidhi, ma doonayo meel aan joogo in aad adiga ila joogto. kadibna bannaanka ayuu u soo saaray. waxa uuna ka xirtay albaabkiisa. subxaana allah, way iska soo baxday hooyadii iyadoo aad iyo aad u niyad jabsan islamarkaana ooynaysa. waxay ku soo laabatay magaaladii ay ka tagtay ee degganayd. dadku waxay weydiinayeen, hooyo, miyaad soo heshay wiilkaagii aad raadinaysay? waxay ugu jawaabaysay dadkii, haa, waan soo helay, laakiin kama aanan soo helin wixii aan u raadinayey. isbuuc kadib aad iyo aad ayay u xanuunsatay hooyadii. waxayna u yeertay nin u qora warqad. wuuna u yimaaday ninkii u qori lahaa warqadda. markii loo qoray warqaddii, waxa ay ku tidhi, wiilkaygiyow, ballan iga qaad in aanan la furi doonin ilaa iyo inta aan ka dhinto waraaqdan. sidoo kalena ruuxna uusan fiirin karin ilaa wiilkayga mooye. maalmo kadib way dhimatay hooyadii. dadkii magaalada ayaa baxay oo u tegay wiilkii. waxayna ku yidhaahdeen, wiilyahow, hooyadaa waa ay geeriyootay. ee kaalayo wax ka dhaq oo karfan oo nala duug hooyada. waxa uu yidhi, ma rabo, ee idinka dhaqa karfana oo duuga. markii uu ku celceliyey hadalkaasi ayaa loo sheegay in hooyadii ay dardaaran u reebtay. dardaarankaasina uu ku qoran yahay warqad.
isla markaana uusan furi karin ruux aanan wiilkeeda ahayn wuu soo raacay. waxa uu yimaaday gurigii uu beri hore ka tegey, isla markaana uu yaalo meydka hooyadii. waraaqdii kor saarneed meydka hooyadii ayuu soo qaaday, wuu furay. waxa uu bilaabay inuu aqriyo warqaddii. waxaa ku qornaa hadalladan: wiilkaygii aan jeclaayow, waxaan awoodi waayey in aan kuu sheego intii aan noolaa. jaanis aan kugu sheegana ima aadan siin wiilkaygiyow. mar weliba oo aan doono inaan kuu sheego waad iga sii fogaanaysay. waxaan ahaa hooyadii isha la'ayd, laakiin miyaad og tahay oo aad isweydiisay wiilkaygiyow ishaan maqan waxa iiga dhacay? wiilkaygiyow, adigoo aad iyo aad u yar, da'daaduna ay u dhexayso 1 sano ilaa iyo 1 sano iyo bar, isla markaana aabbaha uu gaari nagu wado ayaa nala gadoomay gaarigii. nasiib darro waxaa halkaasi ku geeriyooday adiga aabbaha. waxaa soo haray adiga iyo aniga. markii aan arkay in aad caafimaad qabto waan farxay, waan ku soo qabtay adiga oo gacanta ku haya qoray. laabteeda ayaan ku geliyey, waxaadna isha iiga mudday qoraygii aad gacanta ku haysay. wiilkaygiyow, adiga ayaa sabab u ah in ay ishayda dhacdo. wiilkii ayaa ilmeeyey oo isku dultuuray meydka hooyadii. laakiin muxuu calaacal u qabanayaa? hooyadii oo nool ayuu ka guuray isagoo ku nacaya isha ay la'dahay, isla markaana isha uu hooyadii ku nacayo isaga uu ka riday. muxuu calaacal u tarayaa? waxa uu xanaaneyn waayo hooyadii iyada oo nool. waxa uu ka cararay iyadoo u baahan. jeceelkeedii ayuu necab ugu beddelay. subxaana allah. waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyogan. haddii uu ku cajabiyey, fadlan subscribe saar, gambaleelkana taabo si aad u noqoto qofka ugu horeeya daawada. waxaadna la wadaagtaa fikradahaada saliimka ah. mahadsanid.